Ku soo dhawaada muuqaalka maanta oo aynu kaga hadli doono fursado u khaasa ganacsatada. Fursadahaasoo noqonaya kuwa tababar, maalgelin iyo kuwa dhiirigelinba. Haatanna aynu eegno fursadahaas. Ku soo dhawaada fursadda koowaad ee barnaamijkeena maanta. Fursadan magaceeda waxaa la yiraahdaa African Entrepreneur Prize Initiative (AMBI). waxaana loogu talagalay Africa Business Heroes ama xidigaha ganacsiga ee Afrika inay ku tartamaan. waxaana loo qaybin doonaa lacag 1.5 milyan ah cidii ku guuleysata. waxay xirmaysaa dabayaaqada bisha Juun. waxaana lagu xulanayaa inay yihiin cidda soo codsanaysa dad ganacsato ah oo ganacsigoodu uu yahay mid ifaya oo hirgalay, leh himilo iyo han ay hore ugu socdaan, leh qorshe iyo hal abuurnimo ay ka muuqato, bulshadana saameyn wanaagsan ku yeelanaya. waxaana uu ka soo jeedi karaa dhammaan dalalka Afrika. ma laha da' gaara oo lagu xulay ama in qofka ganacsigiisu uu noqdo qayb gaara. mana jirto jinsi gaara oo la rabaa. wareegga koowaad 50 qof ayaa soo baxaya, wareegga labaad 20 qof, wareegga saddexaadna 10 qof. 10kaas qof ayaana noqonaya guuleystayaasha barnaamijka. si aad u codsato waxaa lagaa rabaa inaad marka koowaad akoon ka samaysato website-kooda. marka labaad aad buuxiso shuruudaha loogu talagalay cidda codsanaysa. marka saddexaad aad xareysato codsigaagii iyo muuqaal aad iska duubtay oo aad ku faahfaahinayso naftaada iyo ganacsigaaga. marka afraadna aad keento reference iyo caddayn tixraac. linkiga aad ka codsanayso ka eego description-ka hoose ee muuqaalkan. imikana jaaniska labaad aynu soo bandhigayno maanta. fursadan oo magaceeda la yiraahdo Swiss Africa Business Innovation Initiative waa tababar loogu talagalay dhalinyarada ganacsatada ah ee dhinaca cilmi baarista iyo technology-ga. fursadan waxay siinaysaa dhalinyarada ku guuleysta tababar loogu qaban doono dalka Morocco. tiimka ugu fiicanna waxa ay tababar labaad ku qaadan doonaan dalka Switzerland. dhammaan qarashaadka tababaradan iyo safaradanna waa kuwo ay shirkadahan u dabooleen. fursadan waxa ay xirmaysaa 28 bishan Juun. waxaana ay u furan tahay qof kasta oo dhalinyaro ah, jaamacad ka qalin jebiyay, leh ganacsi yar oo uu aasaasay oo ka shaqeeya dhinaca cilmi baarista iyo technology-ga. waxa uu baran doonaa sida loola xiriiro macaamiisha, loo kobciyo ganacsi iyo sida ganacsiga loogu sameeyo hiraal fog iyo istaraatiijiyad uu ku dhaqaaqi karo. aqoontaasina waxaad ku qaadanaysaa labada tababar ee kala duwan ee midkood la yiraahdo Advanced Entrepreneurs Workshop in Marrakesh, ka kalena la yiraahdo Business Development Bootcamp in Switzerland. haddii aad shuruudaha buuxiso aad rabto inaad codsato, waxaad ka heli doontaa description-ka hoose ee muuqaalkan. si aad ula socoto fursadaha caalamka, ku xidhnow kanaalkan. haddaad muuqaalka ka heshay like saar, faallana ka bixi. mahadsanid.